xuska 27 guurada la soo noqoshada xornimada Somaliland ayaa maanta looga dabaaldegay magaalada Wajaale ee xuduudda u dhaxaysa Somaliland iyo Itoobiya. Dabaaldegani lagu xuseeyay munaasabadda 18 May ee qarannimada Somaliland ayaa waxa iskugu soo baxay qaybaha kala duwan ee bulshada magaaladaasi Wajaale, laamaha dawladda, dugsiyada waxbarashada, iyagoo socod ku soo maray shaaracyada iyo jidadka magaaladaasi Wajaale. Dabaaldegani ayaa waxa sidoo kale ka qayb shirkadaha kala duwan ee magaalada Wajaale sida shirkadda Sagaljan. Gabagabadii shacabkani dabaaldegayay ayaa iskugu soo biyo shubtay khayriyada magaalada Wajaale, waxaana halkaasi kala hadlay كانوا قبصني كاري يلبا كتير كاري إذا الله كما نقول كاري يلبا هيك سلمان تبع وحن حارس ولا قبصني ولا كتير كاري الله أكبر الله أكبر وهذا كان كسلام يا الأولاد جمهورية الصومال من سبب عبد كذا كان يقول وإلى المستقبل تاعنا أيضا كذا وإلى يوم تأخرين تلقى الجوسنا ما أنت وحيد كتم بيا كعنتها سنوات تأخرين كعنتها سنوات دفاع تاسعي مسؤول أيضا كذا هو الإسقاط تاعه وتنوتله قرننا دين أقول وجهنا ثانية تجمعنا ينرى أقول وجهنا عددنا الكل بنام بحلين قرننا جمهورية الصومالية سبب بلادي كسور أيتي تطلع تنفي سبب تنكمي هذا عالمي أنا هنا كمان تيجي هم كلا ما كلا تاسي وأنا نسمعها هذه يا دمر وأنت هذا نهار أنا رحمة الله غالي كرم رحمة الله غالي كرم كاسيالي هالكلام جوا يمكن ما يشوف جوا ينورينا وهالكل نمريات وقيدين وحن هو مي إنه أرسل لنا هذا maanta hanti baan leenahay, waxaan leenahay bad baan leenahay, maal baan leenahay, ciidan qaran baan leenahay oo intaas oo nooc kala ah. Shaqaysa rabadaanteeda waxaan Ilaahay ka doortayna inagoo haysana aqoonsiga inaan ku dabaaldegno barta maanta taaganahay. Maxaad tirahdeen laatanaad ee ka soo wareegtay qarannimada Somaliland waxaan ugu mahadnaqaynaa inuu Ilaahay taaytu ka fiican na gaarsiiyo barwaaqana Ilaahayna ugu simo wanan inshallah inay tahay tabaaniya sidoo bandigiran Soomaaliland. Sakariya Nuux Ibrahim, warbaahinta SBC magaalada Wajaale.